السلام عليكم أصحابي أياد mahadsantiin maadaama aad na gaadhsiiseen 200 subscribe. maanta waxaynu sharaxaynaa filim lagu magacaabo The Awakener. fadlan haddii ay timarkii koowaadna soo booqato subscribe noo saar. filimku waxa uu ku bilaabanayaa dadyow aad u fara badan oo ka banaanbaxaya madaxtooyada horteeda aadna u cadhaysan. ninkani waa gudoomiyaha gobolka Sandra Kuria, waxbuu istabameeyay shacabkuna aad ayay u xanaaqsan yihiin. gurigiisa ayaa dhagax lagu soo tuurayaa, waxa uu hoos gelayaa miiska hoostiisa, waxa uu imanayaa nin maaskara xidhan. ciidamadani waxay u tababaran yihiin si gaar ah, waxaana lagu magacaabaa DAE. waxay yimaadeen guri meesha ku yaala. ninkan kafeega cabayaana waa Sandro, gudoomiyaha gobolka. way soo xidheen waxaanay wadaan xafiiska dembi baadhista. waxaa laba socda laba askari, waxaana keenay gudoomiyaha xafiiska dembi baadhista. Iduu ayaa u sheegay inuu musuqmaasuq sameeyay una dhacay hantida dowladda. gudoomiyuhu waxa uu odhanayaa qof kastoo ka hor imaada dhaqankayga iyo waxyaabahayga waan dilaya. gudoomiyuhu waxa uu laaluushay Magwal iyo Iduu, waxaanu cunayaa cunto. waxaana uu yimi abukaatiisi, waxaana u sheegay inuu la hadlay xafiiska gudoomiyaha dembi baadhista. waxaanu u sheegay in mar dhow la sii dayn doono gudoomiyaha. taliyaha ciidanka DNE waxa uu qabtay shir degdeg ah. waxa uu sheegayaa in kiiska gudoomiyaha wax caddayn ah lagu hayn oo markaa la iska sii daayo. sidaasna waxaa lagu sii daayay gudoomiyihii. Magwal iyo Iduuna waxay usoo baxeen banaanka. Magwalna waxa uu tegayaa xaaskiisa iyo inantiisa oo banaanka jooga. waxa uu keenayaa garankii ayay xidhanaysaa, waxaana sawir ka qaadaysa xaaskiisa. Magwal iyo inantiisu way soo baxeen, waxayna soo qaateen taxi. wadada waxaa ka jiray jaam, gaadhigii ayay kasoo degeen. waxayna is yidhahdeen lugeeya. si kedis ah waxa ugu dhacday xabad. waxa uu qaaday isbitaalka iyadoo dhiig baxday, waxaanu geeyay isbitaalkii. dhakhaatiirtiina waxay u qaadeen gudaha maadaama inanteer dhiig baxday. qolka emergency-ga ayaa la geeyey, isagiina waxa lagu yidhi joog. waxa uu ka warwarayaa inantiisa oo dhiig baxday. waxa uu arkayaa bukaano badan oon waxba loo qabanayn. waxa uu diidayaa inantiisa, waxaanu ku arkayaa halkaas maadaama bukaanada waxba loo qabanayn. alaysna waxaa lagu hayaa halkan. dhakhtarkii ayaa uu ka odhanayaa maxaa dadka wax ugu qaban weydeen. waxa uu ka odhanayaa isbitaalku ma awoodo in dadka wax badan loo qabto, marka waa inaad iska sugtaan. waa uu iskaga tegayaa. alaysna waxa uu eegayaa gacanteeda, waxaanu arkayaa inaanay dhaqdhaqaaqayn. halkii ayay ku dhimatay, waxaana u timi xaaskiisii oo warwarsan. halkii ayay labadooduba ka ooyeen ka baroorteen. dhanka kale waxaynu aragnaa gudoomiyihii oo lasii daayay. waxa uu qabanayaa shir degdeg ah, waxaanu odhanayaa waxaanu sharaxanay madaxtinimada. waxaanu u sheegayaa inuu wax walba u qaban doono, cisbitaaladana keeni doono qalab caafimaad oo dadka lagu daaweeyo. dhanka kale waxaynu aragnaa Magwal oo cararaya. intuu jimicsiga ku jira waxa uu soo xasuusanayaa inantiisa, waxaana u sabab ahaa dhakhtarka. waxa uu odhanayaa cisbitaalada dowladda ma yaalaan agabkii caafimaad ee loogu talagalay in bulshada lagu daaweeyo. markaa waxay sidani. waxa uu soo gelayaa makhaayad. waxa uu ku arkayaa TV-ga gudoomiyihii oo la soo daayay oo isku soo sharaxay madaxtinimo. waxa uu odhanayaa waxay sida ay dowladdu u dhaqmaysaa. waxa uu tegayaa gurigii gudoomiyaha, halkaas uu weerar ku qaadayo. waxaa lagu dhufanayaa sunta dadka ka ilmaysiisa. waxa uu ka mid ahaa ciidamada khaaska u tababaran. waxa uu dilayaa dhammaan booliskii. waxa uu gudaha u gelayaa dhismihii, waxaanu dilayaa mid ka mid ah ciidamadii ilaalada u ahaa gudoomiyaha. waxaanu soo dilayaa gudoomiyihii. maalintii xigtay waxa uu imanayaa shaqadii. taliyihiina waxa uu ku odhanayaa waxaad baadhaan ciddii ka dambeysay falkan iyo ciddii dishay gudoomiyaha gobolka. waxaa lasoo ururinayaa dadkii goobta ka dhowaa. dhammaantood waxaa la keenayaa goobtii. Magwalna waxa uu arkayaa gabadh joogtay maalintii meesha. waxa uu la soo gelayaa qolkan. waxa uu ka odhanayaa magaca, waxaanay ku odhanaysaa Nina. waxa uu weydiinayaa su'aalo. waxay ku odhanaysaa waxaan ahay brogrammer. waxay ku odhanaysaa waan ogahay inaad dishay adigu gudoomiyaha. waxaanu arkayaa fiidiyowgii ay ka duubtay. waxa uu soo baxayaa banaanka, waxaanu go'aansaday inuu sii daayo. habeenkii waxa uu daawanayaa fiidiyowgii. waxa uu soo baxayaa gurigii Nina si uu la kulmo. waxa uu ku arkayaa banaanka, waxayna tustay laabtoobkii gudoomiyaha inuu hanti badan dhacay. qalabkii isbitaalkana uu isagu qaatay. Magwal waxa uu odhanayaa gudoomiyuhu keligan hawshan muu wadin. waxay odhanayaan wayna baadhnaa. waxa ay jebinaysaa
meel walba oo ay sir ku jirtay si ay u helaan xog ku saabsan guddoomiyaha iyo cidda la shaqaysa. Waxay arkayaan siyaasiyiin badan oo la shaqaysanaya. Migalna waa uu isdiyaarinaya, waxaanu soo xidhay maaskigiisii. Waxa uu dilay siyaasiyiin badan oo uga shakisanaa inay la shaqaynayeen guddoomiyaha isagoo maaskigiisa xidhan. Dhammaantood waa uu ka wada takhalusay, halkaasna ayaa uu kusoo afjaray iyagii. Waxa uu imanayaa Nina, waxa uu ka odhanayaa waxaad ii soo saartaa siyaasiyiinta guddoomiyahooda ka hogaamiya iisoo saar. Nina way ka cagajidaysaa, waxa uu ku odhanayaa waxaan kaa yaraynayaa xukunka ee iisoo saar. Way baadhaysaa, waxaana isku dayaysaa inay usoo saarto. Waxay la kulmaysaa hooyadeed, waxaanay ku odhanaysaa waxaan u xidhanahay dowladdan musuqmaasuqa ku shaqaysata. Nini way ka timi hooyadeed, waxay baadhaysaa inay soo saarto siyaasiga ugu weyn. Way soo saartay, waxaana lagu magacaabaa Gomez. Waxa uu ku shaqaystaa musuqmaasuq. Regina waxay la kulmaysaa Gomez. Iduna waxa uu baadhayaa dadka looga shakisan yahay arrinkan. Waxa uu wacayaa saaxiibkii Miguel, laakiin kama uu qaban taleefanka. Halkii ayaa uu ku dhageystay saaxiibkii taleefanka isagoo maaskigii xidhan. Waxa uu yimi dhismaha Regina, waxa uu arkayaa ninkii maaskiga xidhnaa. Waa uu eryanayaa, waxa uu ku dhuftay xabad. Miguelna halkii ayaa uu ku dhaawacmay. Waxa uu yimi Nina si ay u daaweyso. Miguel iyo Idu waxay soo diyaariyeen ribood kaasoo lagu eedeynaya wasiir Regina inay xidhiir la leedahay Gomez. Gomez waa qofka ka wada musuqmaasuqa waddanka. Iduna waxa uu go'aansaday inuu baadho wasiir Regina, laakiin waxa ka hor istaagay ninkii madaxda u ahaa. Waxaanu ku yidhi waa qalad waxaas iyo iska daaya. Miguelna waxa uu ka xanaaqay hadalka ka soo baxay madaxda. Waxa uu go'aansaday inuu isagu gacantiisa ku dilo. Maaskigii ayuu soo xidhay. Halkan waxaa fadhiya Gomez iyo asxaabtiisa. Dhanka kale, Gomez iyo wiilkiisa iyo hooyadii ayaa isla fadhiya halkan. Waxaa la rabaa in looga dhigo madax waddanka, laakiin isagu kuma qanacsana. Miguelna waxa uu meel fog kasoo toogtay wiilkii Gomez. Gomezna waxa uu dareemay xanuun maadaama wiilkiisa laga dilay. Waxa uu isku soo sharaxay madaxtinimadii. Halkanna waxaan ku aragnaa nin mobil isticmaalaya oo fariimo dirdiraya. Halkan waxaa ku shiraya Gomez iyo asxaabtiisii. Gomezna waxa uu yidhi waxaan rabaa qofka wiilkaygii dilay. Ninkan gaadhiga saaran waxaa Squire. Waxa uu shaqeeya Gomez. Ninkani waxa uu yimi ninkii u shaqaynaysay Nina, waxaanu dilay ninkii. Goobtii waxaa timi Nina, waxaanay aragtay ninkii ay u shaqaynaysay oo la dilay. Waxay dareentay cabsi, meeshiina way ka carartay. Ninkani waxa uu Gomez u sheegay inuu soo dilay ninkii. Ninina way ordaysaa, waxaanay afka ka gashay ciidamo. Waxaa lagu soo riday xabad. Nini waxay jiibsatay, meeshiina waa ay ka carartay. Goobtii waxaa soo galay Miguel, waxa uu dilay dhammaantood isagoo wejiga ku xidhan maaskigii. Waxaa xabad lagu qabtay Nina, waxaana ku qabtay nin. Waxa uu ku yidhi haddaad dishin waxaan dilayaa gabadhan ee qoriga hoos u dhig. Miguelna waxa uu mu joojin, ninkii ayaa uu eegayaa. Miguelna waxa uu socdaa dhankaasi baarlamaanka maadaama Gomez madax noqday oo guuleystay. Halkaas oo ay ku dabaaldegayeen. Waxa uu soo istaagay baarkinkii, waxaanu dilay ciidamadii Gomez. Waxa uu dilay ilaaladii khaaska ee Gomez. Gomez ayaa uu yimi, waxaanu soo hor istaagay isagoo maaskigii xidhan. Waxa uu qorigii ku qabtay Gomez, waxaanu ku dhuftay qorigii. Halkii ayaa uu ku dhintay Gomez. Waxa meesha jooga ciidamo badan oo Gomez u shaqeeya. Miguelna waxa uu diyaarsaday bamba. Qorshihiisa labaadna waxa weeyaan in bambadan ku qarxiyo. Bambadanna waxay ku xidhantay gaadhigiisa. Waxa qarxay gaadhigii, waxaana meeshii ka kacay dab aad u fara badan. Waxa laga daawanayay CC kaamirada. Meeshiina waxa soo gaadhay burbur aad u xooggan. Ciidamaduna waxay baadhayaan meydadka, waxaanay meesha ka helayaan wejigii Miguel. Miguelna waxa uu saaran yahay guriga dhakadiisa, halkaas oo uu ka tooganayay dadka.